waqtigan Israa'iil iyo Iiraan waxay dhexda uga jiraan isku dhac military oo aad u khatar badan. Isku dhac gantaalada la isugu jawaabayo sidii shadranji la iska sugayay tilaabada xigta. Laakiin maxaa dhici kara haddii shadranjigaas la ciyaarayo qalimo? Maxaa dhici kara haddii colaadan aysan ku ekaan labadooda oo kaliya? Muuqaalkan waxaan ku eegaynaa shanta suuragalnimo ee ugu xun oo ka dhex dhici kara dagaalka Iiraan iyo Israa'iil iyo sida ay u bedeli karaan bariga dhexe ama aan dhahay adduunka oo dhan. suuragalnimada koowaad waa Mareykanka oo si toos ah ugu biira dagaalka. Iiraan hadda ayayba tuhunsan tahay in Mareykanku uu si qarsoodi ah u taageeray weerarka Israa'iil ku soo qaaday. Taas ayaa sababaysa inay ku goodiyaan inay si toos ah u beegsan karaan bartilmaameedyo Mareykan ah oo ku yaala bariga dhexe sida saldhigyada ciidan ee Ciraaq, xarumo u yaala Khaliijka iyo safaaradaha Mareykankaba. In Mareykanku haddaba dagaalkan ku soo biiro aad bay u fududahay. Tusaale sahlan ah ku siiyo qiyaas gantaalada Iiraan ee hadda haleelaya Tel Aviv ayaa mid ka mid ah wuxuu ku habsaday muwaadin Mareykan ah oo jooga xaafadda Bitsaron ee Tel Aviv. Donald Trump isla daqiiqada warkaas la tabiyo waxaa jiha walba kaga imaanaya cadaadis weyn oo ku qasbi kara kuna qasbi doona inuu falcelin military sameeyo. Inta waxaa dheer in Mareykanku kaliya uu yahay quwadda adduunkan haysta bambooyinka culus ee GBU-28 loo yaqaano kuwaas awood u leh inay burburiyaan xarumaha nukliyeerka ee Iiraan ee hoosta ugu qodan dhulka sida saldhigga Fordow. Haddii Mareykanku haddaba uu duqeeyo Fordow ama si toos ah dagaalka u soo galo, dagaalka oo dhan wuu isbedelaya wuxuuna noqonayaa mid waqti dheer si socda yeeshana saameyn caalami ah. Gacanka Carabta oo gubta. Malaha labaad wuxuu noqon karaa haddii Iiraan ay awoodi weydo inay si wax ku ool ah u garaacdo Israa'iil, waxay qorsheeda u leexsan kartaa bartilmaameedyo ka jilicsan sida xarumaha shidaalka Sacuudi Carabiya ama kaabayaasha dhaqaalaha ee isu taga Imaaraadka Carabta. La xasuuso Iiraan waxay hore loogu eedeeyay inay weerartay xarumaha saliidda Sacuudiga 2019 2022 waxay Xuutiyiinta ay taageerto duqeeyeen Imaaraadka. Laakiin arrinta cakiran ayaa ah dalalka Khaliijku iyana waxay martigeliyaan saldhigyo ciidan oo Mareykan ah. Qaarkood ayaana si qarsoodi ah sanadkii hore u caawiyeen Israa'iil markii ay Iiraan duqeysay. Haddaba haddii Iiraan ay garaacdo wadamada Carabeed ee Khaliijka, waxay noqonaysaa in Mareykanku uusan kaliya difaacin Israa'iil balse uu ergey ka noqdo difaaca kala bar wadamada bariga dhexe. Israa'iil oo burburin weyda nukliyeerka Iiraan. Malaha saddexaad waa haddii Israa'iil ay ku guuldareysato inay burburiso barnaamijka nukliyeerka Iiraan, maxaa dhici kara? Haddii uraniumkii ay Iiraan karinaysay oo hadda gaaray heer sare oo lagu qariyay godad buuraha salkooda sir ku ah uu sababay in Israa'iil dagaalkan gacanta ku horeyso, miyaanay suurtagal ahayn in weerarkani ku qanciyo Iiraan in hub nukliyeer ah uu yahay wadada kaliya ee ay ku badbaadi karaan? soo lagama yaabo in taliyaasha cusub ee Iiraan ay noqdaan kuwa ka sii dhiiran kuwii ka horreeyay ee laga dilay oo ay uga degdegsiimo badnaadaan sameynta nukliyeerka. Haddaba haddii taasi dhacdo bariga dhexe oo dhami wuxuu noqonayaa meel aanan ka dhammaan dagaal isdaba joog ah. Taas oo ah xeelada Israa'iil ku caanamaashay sanado badan oo ay ugu yarto goynta cawska. Waa loolan aan dhammaad lahayn oo si isdaba joog ah duqeymo iyo dilal loogu wiiqayo cadowga. Laakiin sidee loo ogyahay caws walbo la jiro dib ayuu ugu soo bixi doonaa. xaaladda afraad waa dhaqaalaha adduunka oo burbura. Qiimaha saliidda waa kan durba cirka isku sii shareeray dagaalka oo aan saacado socon. Maxaa dhici kara haddii tilaabada xigta Iiraan ay ka dhigto inay xiraan marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz? Ka waran haddii kooxda Xuutiyiinta Yemen ay kordhiyaan weeraradooda maraakiibta ku sugan badda Cas? Waa xulafada kaliya ee weli xooggan ee Iiraan uga hartay wakiiladoodii dagaalka, kuwaas oo leh taariikh lagu yaqaan inay hamuun sare u qabaan qalalaasaha. Dunida oo dhan dalal badan ayaa haddaba la tacaalaya musiibada nolosha oo qaali noqotay. Qiimaha shidaalka oo kordha wuxuu ka dhigan yahay sicir barar dheeraad ah oo ku sii daba dheeraada nidaamka dhaqaalaha caalamka oo imikaba la leecaya sababo la xiriira dagaalka canshuuraha ee Trump. Ha iloobin oo qofka kaliya ee doonta ugu jirto qiimaha saliidda oo kor u kaca waa madaxweyne Putin-ka Ruushka, kaas oo heli doona balaayin dollar oo ku soo qolqosha khasnadda Kremlin-ka, taas oo ku sii maalgelin doona dagaalkiisa Ukraine. Sidaas ayaana hal mar markhaati uga noqon doonaa dagaal gobol ka socda oo mid dunida cirifkeeda kale ka socda bulaalinaya. Ugu dambeyntii suuragalnimada shanaad ee ugu xun waa dowladda Iiraan oo gabi ahaanba burburta. Netanyahu kaliya ma ahan mid weeraraya xarumaha nukliyeerka Iiraan, balse wuxuu si cad u sheegayaa inuu doonayo isbedel xukun. Wuxuuna dadka Iiraan ugu baaqay in weeraradiisu yihiin wadadii xorriyadda. In xukunka Iiraan la rido waxaa laga yaabaa inay dad badan oo bariga dhexe ku sugan farxad geliso, gaar ahaan qaar badan oo ka mid ah Israa'iiliyiinta. Laakiin booska ay Khamenei iyo xertiisu banayn karaan sidee noqonaya? Maxay noqon karaan cawaaqibka aan la saadaalin karin ee ka dhalan kara dagaal sokeeye oo ka dhacay Iiraan? Tan oo kale hore ayaanu soo aragnay. Xasuuso wixii ka dhacay Ciraaq iyo Liibiya markii xukuumadihii xoogga lahaa la riday. Fowdadii ka dhalatay ayaa noqotay mid si kasta uga sii daran
xaaladihii hore ee ay ku jireen dalalkaas. haddaba haddii Iiraan oo shacabkeedu 100 milyan oo qof ku dhow yihiin ay la kulanto faaruq maamul iyo foodo siyaasadeed, colaadda sokeeye ee gudaha ka dhalata waxay noqon doontaa mid aafadii Suuriya ka dhigta hay sheegin. sidaas darteed wax walba waxay ku xiran yihiin sida uu dagaalkan u dhaco maalmaha soo socda. in laba su'aalood oo dhammaan shacabka dunida ka guuxaysa. Iiraan sida iyo intee in leeg ayay argudan doontaa? Mareykankuse intee in leeg ayuu xakameyn karaa Israa'iil haddiiba ay dhacdo inuu xakameeyo? jawaabta labada su'aalood ayaan go'aamin doontaa inaan aragno dhammaadka xiisadan ama bilowga hoog iyo bacsu. أحمد محمود عبد بان إلى أحمد وحاجات قال هذا السؤال هذا شوكته وحاجة مقالة قم مقالة إيران واقرتي تقريبا وحيكون على سنترال كونتك يكون على وحيكون حيسا مقالة عاصمة تهران iyo magaalada Isfahan bay u dhaxaysaa goorma tagtay marka halkaasi wadanka waa ku noolahay muddo ilaa laga soo bilaabo 2013 inta u dhaxaysa ilaa eega maxaad ka qabataa marka Axmed oo halka anu jaamacad baan ka bartay managementiga ah maamulka jaamacad kale waxaan ka bartay xagga dhaqaalaha oo hadaba aan wax yar iga arsan yahay marka taqriiban waan isku noolahay wadanka ganacsiga iyo waxaasna waa ku leenahay waa deganahay waa gartay adiga kaliya miyaa degan mise qoyskuna waa kula socdaan qoys waxa wadankiiba jiraan hadda laakiin aan baa jooga iiga waran magaalada hadda joogta ee Qum xaaladeedu waa sidee Qumta gudaheeda waxba kama dhicin laakiin banaankeeda meelaha buuraleyda iyo waxba soo gaaray baa lagu sheegayaa marka shalay waxaan joogay caasimadda xalay baan soo galay marka caasimadda inta badan way xidhnayd dadkuna wadooyinka sidii ay zaxmad u ahaan jirtay ma ahayn tareenada oo kale dad yar baa saaraa waagii hore marka aad u fiiriso aad bay magaalada u buuxin jirtay zaxmad weyn u ahaan jirtay marka waa laga dareemay xagga caasimadda waa gartay laakiin halkan aan joogo anigu hadda dareen badan hadda kama jiro ilaa marka laga reebo in magaalada adraafteeda lagu sheegayo in waxyaalaha ku dhaceen qarxiyo waxaan u fahmay inaad xalay Tehran ka soo baxday oo caasimadda ah magaalada maxaad uga soo baxday loo magaalada cabsi baa ka jirtay markii horena marka waan gaaray oo dambaan hawl baa iga xidhnayd oo shalay subaxdii baan tagay hawlaha qaarkood weegiiba 2 jeer 3 jeer waan tagaa sida caasimadda marka adu dadku waa soo yaacayeen oo ay ka soo baxayeen inta badan marka arrimaha jira dartood baa marka aan soo lafano waxa la soo guuray Axmedow bal muuqaal ama sawir guud ka bixi xaaladdu sida ay tahay magaalada Tehran ee ka timid iyo midda Qum ee hadda joogto liyo wadanka dadku inta badan waa dad dagaalada yaqaan oo ma cabsi badno sida wadamada qaarkood ka dhacda marka uu wax dhaco uu kala yaaco magaalooyinka qaarkood iyadoo oo qaraxyo ka dhacay baa sida Isfahan oo kale iyo ayna dadku dambaga lahayn hasa ahaatee isbedel waa laga dareemayaa sidii uu ahaan jiray wadanku caasimadda kale hadda soo qaato kulli waan arkaya aniga laftaydu marka aan sii galay oo kale iyo aroortii meelaha uura ay ka kacday oo kale oo aan u malayn inay kaalin shidaalahayd ma aqaano marka waa jiray kulli isbedel caasimadda waa isbedel waa jiray Axmedow inta ogaalkaaga ah meelaha ay sheegtay in duqeymo lala beegsaday oo weeraradu ay ka dhacayaan ma goobo dad rayid degan yihiin ba mise waa xarumo dawladeed meelaha ay ka dhaceen inta badan aan ka warqabo xarumo dad shacab ay degan yihiin ayaa u badan yihiin sida galbeedka magaalada wadanka iyo waqooyi galbeed sida magaalada Zanjan iyo Tabriz inta hadda wax soo gaaray dad shacab dhismayaal ay degan yihiin iyo wadooyinka iyo waxaas ay u badan yihiin sida magaalada la yiraahdo Kirmanshah dhakhaatiir dad shacab lagu daaweynayo ayuu soo gaaray waxyaalo badan soo gaadhay shalay iiga waran Soomaali intee leg baad ku joogtaan inta ka warqabto wadankaasi Soomaali marka la isku daro dadka jooga dadka shaqeeya oo business-ya waxa u jooga iyo dad kale wax barasho u jooga ilaa 6 qof meelahaas ka badan marka la soo geeyo hadda 6 qof dad Soomaali oo waxyeelo soo gaadhay miyaa jirta yar waxa jira kulliyadda caafimaadka Tehran barta firir ba madaxa iyo dhabar ka soo yargaaray darar meel uu ka dhacay qarax uu ka yaracay waa sidee marka hadda xaaladdiisu way saalaantay xaaladdiisu way fududahay marka waxa la sheegay hadda inuu dhaxda ku sii jiro oo leeyahay xagga Azerbaijan uu ka cayaa dhaxda ku sii jira la sheegay anu lama hadale maxaa idin qorshe ah marka dadkiina Soomaalida ah ee halkaas jooga hadda ee muddana ku noolaa liya waxaan noo qorshe ah kulli waan tashanayna oo maanta yar soo imanayna galabtii iyo hadda qaar baa ka soo caasimada ka soo baxay oo xaggayga u soo socda magaalada aan joogo ee Qum marka kulli waan tashanayna oo ma garanaysaa inaan sii joogno wadanka iyo inaan ma garanaysaa maxaanino oo ka baxno waxbaan kulli aan qorsheynayna walaaca idinku weynee marka ilaa hadda qabtaan muxuu yahay walaacu waxa weeyaan in dagaalku sii balaadho ma garanaysaa ay sii waxaystaato oo ma garanaysaa meesha godoon aan ku gallo
ah